taladiisa siyaasadda markaan nimiday dowlad goboleed ma jirin dastuurku waa ku qoraayeen laakiin ma jirin galmudug aan jirin hirshabeelle aan jirin koonfur galbeed aan jirin jubbaland aan jirin gaalkacyo laga soo bilaabay ilaa meesha u dambaysa jubbaland bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa la isku dhihi jiray ee magac gaar oo kale ma lahayn jubbalandaa timid koonfur galbeedaa ku xigsatay galmudugaa ku xigsatay hirshabeelle yaa u dambaysay samaysantay dad badan baa nala yaabi jiray markaynu xasan sheekh ugu yeerayno xasan munaafiq dad baa u haystay inaan madaxweynaha caayeen hadda ayaa lagu baraarugay xasan inuu yahay munaafiq aan balan lahayn haddana aanan aqoonin la dhaqanka shacabka munaafiqnimada xasan sheekh xalay ayay ugu dambaysay wuxuu magaalada dhuusamareeb ka yiri hadal gaf iyo meel ka dhac ku ah dadkii soo dhoweeyey sharfay ixtiraamay taageeray muxuu yiri qodobka koowaad ee barnaamijka ayaan ku kashifi doonaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xalay inkiro indhaha ka daboosho weliba uu sheegi waayo haddana uu meesha ka saaro maamulkii waqooyi bari maxaa keenay wuxuu xalay sheegay arrintaas bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshadii u halgantay maamulkaas horta waxba kama bedelayso dadkaasi waa dad dhiigooda u shubay sidii maamulkooda ay u dhisa lahaayeen xasan sheekhna munaafiqnimadiisa unbay barteen mooyaane waqooyi bari xasan sheekh u dhutin mayso wayna ka dambayn doontaa waxayna noqon doontaa maamul dhisnaada xasan sheekh unbaa meesha ku cebaysa ujeeddadii uu ka lahaa xasan sheekh isla dhismaha maamulka waqooyi barina hadalkiisii xalay nuxur badan baa uga soo baxay markii koowaad ma aha markii labaadna ma aha madaxweynaha muddo dhaafka hadda ku jooga filla soomaaliya si kal iyo laabay reer waqooyi bari u sharfeen una qiimeeyeen laakiin waa sababta aan ku leeyahay xasan sheekh inuu munaafiq yahay maxaad iila yaabaneedeen markaan idiin sheegayay barnaamijka ayaan ku iftiimi doonaa kuguna soo gudbi doonaa isla xalay hadalkiisii waxaa ku jiray in beesha caalamka dhaqaalihii ay ka goosatay dowladdiisa wuxuuna xalay sheegay in booska dhaqaalihii beesha caalamka ay shacabka soomaaliyeed isku filan yihiin wuxuuna sheegay in maalgashi aan loo baahnayn oo shacabka laga doonayo in maalgashigaasi ay buuxiyaan micnaheedu oktoobar la fili maayo lacagtii bangiga adduunka waa la jabay barnaamijka ayaan ku iftiimi doonaa kuguna soo gudbi doonaa soomaaliya labay mid noqonaysaa inuu gurgurte nuxurka dhabta ah ee dowladnimada u fahmo iyo inay soomaaliya kala go'go'do weliba qaab halisteeda leh haddaanan hadda laga digtoonayn maxaan ula jeedaa waxaa muuqata hadda in beesha caalamka ay si xor ah oo aynan dowlad shaqo ku lahayn ula macaamilayso jubbaland puntland iyo somaliland maxaa meeshaasi kaaga cad waxa soo socda iyo maalmaha nagu soo aadan haddaynan siyaasadda toosin meel fog baa laga baadigoobaya war aqligaagu yuusan noqon muqdisho waa ii nabad ee maxaa iga galay muqdisho waxay u qurux badan tahay waa dowladnimada maanta haddii la kala go'go'o oo la kala qaybsamo oo shisheeye uuna kala qubqubo bilicda iyo quruxda caasimaddu sidan sii ahaan mayso haddaadan cadaalad haysan gurigaaga aadan ku badbaadayn nabadda caasimadda faa'iide intee la'eg ayay adiga dhankaaga kugu fadhidaa barnaamijka wax badan baan ku kashifi doonaa iyo muuqaalku markuu ku soo gaaro videoga like saar sii sheer garee haddii aad ku cusub tahay youtube-kana fadlan subscribe ii saar waa halka aad kala socon karto barnaamijyada aan soo gudbiyo haddii aad horey u saarato youtube-kan subscribe mahadsanid waa 15 bisha 8aad sanadka 2026 markii labaad oon hawada ku kulanno madaxweyne xasan sheekh markaan dhihi jiray xasan munaafiq dad badan baa aniga ila yaabanaa qaarkood waxay u haysteen inaan madaxweynaha iska caayayo war anigu qofka ma caayo waxa uu yahay baan sheegaa ma taqaanaa micnaha munaafiq waa micnaha aan rabo inaad maanta ku baraarugto si fiican muuqaalka u dhegeyso si fiican u dhuxu waxa afkayga ka baxay si fiican u daawo muuqaalka xasan sheekh oo ku shidi doono waxa uu leeyahay dhegeyso wixii adiga kaaga soo baxo qaado ilaahay baa aqli ku siiyey
ilaahay baa dhaga ku siiyey ilaahay baa indha ku siiyey waxaad aragto ood maqasho oo maskaxdaadu ay fahamto unbaa ku anfacaya inta aanan u guda gelin munaafiqnimada xasan sheekh waxaan rabaa xaaladda soomaaliya haddaan siyaasadda laga heshiin horta dhaqaale ma jirayo amnina ma jirayo cid ku caawinayso beesha caalamka ka midana ma jirayso haddaad diiddo nabadda iyo isdhexgalka iyo heshiiska dunidu maalintaasay faraxa kaa qaadaysaa maraykan wuxuu yidhi wax dhaqaala aan ku bixinayo ciidamada shisheeye ee nabadda ilaalinaya ma jirto sabab ninka nabadda loo ilaalinayo ee madaxtooyada jooga ee aan ciidanka shisheeye ka maarmin waa kibirsaya war labada orod middaa haddaad shisheeye ka maaranto war ciidankiina la baxa shaqana iguma lihidiin waa raganimo anaa dalkayga ku filan waa raganimo laakiin waa idin rabaa taladiinnana ma rabo waan idin rabaa laakiin anigu howlahayga inaad ka hadashaan ma ogoli qof aad adigu samaysatay oo kugu qasban ma aha dadka adiga ku garab taagan waxaa lagugu yidhi mucaaradka la heshiy waxaa tiri maya waxaa lagugu yidhi doorasho heshiis lagu yaalla imo maanta waxaad dunida tusaysaa doorasho la hubo 100% in adig kusoo baxayso dadku makaa aqla yari haddaanan laga heshiin arrimaha siyaasadda soomaaliya weji xun baa ku soo socda hadday bilow tahay ma ku baraarugsan tahay somaliland si madax bannaana loola heshiinaya oo ay ula macaamilaysaa hay-adaha waa kaa ciro magaalada nairobi howlo badan ka qabsaday puntland maraykanka ugu dambeeyey aad ayuu u danaynayaa jubbaland maraykanku 3 jeer buu madaxweyne axmed madoobe la kulmay maxay ka dhigan tahay wax wasaarada oo dowlad dhexe la yiraahdo oo ku dhex jirta lama hayo maanta haddii lagu yiri si madax bannaan hargeysa kismaayo iyo garowe duniday la macaamilaysaa maxaa berri ku soo socda maxaa berri imaanaya dad baa aqligoodii wuxuu ku soo koobmay muqdisho waa noo nabad maxaa naga galay war walaalow qaangaarku da'da keliya maaha aqligaa laga qaangaara inaad weyn tahay micno soo kordhinayso inaad aqliga ka qaangaartay ayaa micno soo kordhinaysa war haddii la kala go'o soomaaliya kala tagto muqdisho bilicday hadda leedahay ma yeelanayso haddii maanta la kala tago dhaqaalaha soo gelaya muqdisho eed adigu faa'iidada ka hesho kama helaysid allaha siyaadiyo nabadda caasimadee haddaysan gobollada kale nabad ahayn oo shisheeye maanta u banneeyo ciidamada hadda nabadda lagu joogo muqdisho waa kuwa daafaha caasimadda joogee haddii bay iyo bakool iyo shabeellada hoose ay banneeyaan ciidanka etoobiya amnigaagu sidee buu noqonayaa dhaqaalaha maanta nuuc la doona lagu samaysanayo berrita ma sii jirayso nabadda caasimadda nuuc ay doontaba ha ku timaado haddii xasan sheekh uu nabad caasimadeed keeni karo awooddeedana uu leeyahay wuxuu keeni lahaa teeramkii hore aqliga kaamarooyinka caasimadda lagu xiray waxaa iskale mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kaartada muqdisho nabadeeda ilan horta in la hindiso qaabka nabadda ayaa ka horeysa in fulin la sameeyo shaxda nabadda caasimadda waxaa iskala ahaa hay-addii nabad sugidda dowladdii farmaajo fahad yaasiin uu hogaaminayay hadda xasan sheekh wuxuu ku leeyahay mucaaradka aniga iga soo horjeeda shalayba anaa farmaajo ka dhicinaya gebigoodna waa soo afjaraya walaa dani walaa axmed madoobe walaa mucaaradka muqdisho ila jooga annaguna wax kalama dhihina waxaan ku dhahan haddaad axmed madoobe iyo dani ka soo adkaato oo kuwa muqdishona aad cagta marayso birmadaa lagugu yeeri jiray boqoraan kugu daraynaa boqor birmadan kuu bixi doonaa ee car iyo wir jubbaland iyo puntland gacanta ku dhig ilaahay wuxuu qadaray in looga soo adkaado maantana dadka keliya uu u dowladay karo waa un hawiye iyo xoogaa degli miliflaa mar kalean ku celinayaa soomaaliya meel fog baa laga baadigoobi doonaa haddii loo dulqaato xasan gurguurta waxaa nasiib darro ah dadkii shalay muddo kororsi 2 sano ah farmaajo u diidanaa waxay ku faraxsan yihiin muddo kororsiga xasan sheekh micnaheedu muxuu yahay xasan waa hawiyo wuxuu doonoo samayn karaa
farmaajona waa daaroodo ma samayn kari wuxuu doono micnaheedu muxuu yahay hawiya waa hawiye dadka marka maanta aamusan ee shalay farmaajo ku diidanaa soomaalinimo ma raadinayn dastuur ma raadinayn midnimana ma raadinayne nin daaroodoo jooga madaxtooyada ayay diidanayeen inuu sidii maxamed siyaad barro kale ku nool runtu waa qaraartaa waan ogahay laakiin waa qasab inaan dhegahayga gaarsiiyo xasan sheekh maxamuud waa munaafiq aflagaadana iga maaha tusaale yaroo kugu filan xalayuu qudbeeyey wuxuu yidhi maamul goboleedyada anaa dhisay sideen cadow ugu noqonaya sideen anigu federaalka u baabi'inayaa ninkii dhisay baan ahay markii puntland laga soo reebo wuxuu yidhi jubbaland baan dhisay koonfur galbeed baa ku xigtay galmudug baa ku xigtay hirshabeellaana ku xigtay intaasaan dhisay yidhi hirshabeellaa weliba ugu dambaysuu leeyahay khudbadduna waa khudbaddii xalay 14 Agosto 2016 halkaa maxaa ka cad inuunan xasan sheekh maxamuud uu xalay dadka u sheegay maamul goboleed hirshabeelle ka dambeeya inuusan soomaaliya ka dhisnayn bal ilaahan idinku dhaariyey siduu ula dhaqmay reer waqooyi bari arka markaan idin lahaa mashaariicda la idiima wado micnaheedii wuxuu ahaa hadalkii xalay uu ka sheegay magaalada dhuusamareeb bal ii fasira maamul waxa u dambeeya waqooyi bari ayaan ka sugayey maamul waxa u dambeeyay hirshabeelle markuu ku leeyahay micnaheedu muxuu yahay maamul goboleedyadu inay 5 yihiin jubbalandaa timid koonfur galbeedaa ku xigsatay galmudugaa ku xigsatay hirshabeelle yaa u dambeysay samaysantay dad badani marmarka qaarkood waxay nagu eedeeyaan inaan nidaamka federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo waxa iyo aan gacan bidixaynayn waxaan rabaa walaalayaal dalkan taladiisa siyaasadda markaan nimiday dowlad goboleed ma jirin dastuurku waa ku qoraayeen laakiin ma jirin galmudugaan jirin hirshabeellaan jirin koonfur galbeedaan jirin jubbalandaan jirin gaalkacyo laga soo bilaabay ilaa meesha u dambeysay jubbaland bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa la isku dhihi jiray ee magac gaar oo kale ma lahayn jubbalandaa timid koonfur galbeedaa ku xigsatay galmudugaa ku xigsatay hirshabeelle yaa u dambeysay samaysantay maanta waa maamullo hana qaaday shaqaynayo welina inaan sii xoojino dowladda dhexe inay sii xoojiso ay sii kaabto ma ogiye marna wax kama ayan halle waxna kama bi'in horta xasan sheekhow waqooyi bari kuma baxna waa jire waana jiri doontaa inaad cadowga waqooyi bari aad tahayna annaga waan ognahay anna waa ka dharagsanahay waxaad ahayd ninkii iyadoo ay shacabka gobolka sool ay dhiig baxayaan ninkii lahaa laascaanood waxaa ka mas-uula somaliland adiga iyo doqonka dheer ee xamse cabdi barre waxaad la safneedeen dhiigyacabkii muuse biixi dagaalkii sool ummaddu markay dhibbaneed waxaad adigu dunida ku tiri meesha 20 qofood keliya ku dhimatay iyadoo tirada dhimashada warbaahintu ay baahinayaan oo qabuurihii aynu maqal iyo muuqaal ku arkayn waad inkirtay masaajidadii la duqayaad inkirtay isbitaaladii dadka lagu leynayaad inkirtay annagu waan ogeyn inaad tahay cadow maamulkaasi aan ogolayn laakiin dad baa naga ilduufay dadkii naga ilduufow xasan waa munaafiq markhaatiyaad ka tegey ujeeddada dhan uu xasan sheekh uu lahaana maamulkiina inuu dibindaabic iyo gacan bidix ku wado waan idin sheegi jiray waana idin sheegayaa mana idinka quursanayo anigu dee meesha waqooyi bari anigu dhaxal baan ku leeyahay dhaxalka waqooyi bari aan ku leeyahay dulmi kasta oo ku socda waan sheegaya bal inuu yiraahdo hirshabeelle ugu dambeysay waa qayb munaafiqnimada ka mid alxamdulilah maanta waqooyi bari waa isku filan tahay waa isku filan tahay waana isku filnaan doontaa sidaa darteed ku barataye cid dambe oo soomaaliyeed ayaadan qayaani doonin ma qayaani doontid cid dambe oo soomaaliyeed dadka walaalaha ah ee soomaalinimo u dhimanayay ayaad intaad qandaraas u diiday ayaad isla dowladdaadu waxay leedahay waxaan buundooyin u dhisayaa qolada yuhuudda aaday ee kaa tagtay wasiiradaadii baa waxay leeyihiin
mashaariicdii loogu talagalay somalilan waan fulinaynaa waxaa tahay qof nacaybku uu ka batay qabyaaladuna ay meel xun ay la gaartay xasan ayaxow inaad tahay ayax baahan ee qabyaalad iyo nacayb daarood qaba anigu waan ku ogahay ummadana wallaahi kama qariyo maxaa yeelay anigu dadka adiga kaa baqa ama adigu aad biisho oo biilka in laga jirto ka baqaya anigu maahi ilaa 2030 qandaraas 12 milyan ay ku baxayso qaybtii somaliland waa la bixiyay laakiin ma la ogola qaybta waqooyi bari doqonkan dheer ee xamse cabdi barre markuu tagay laascanoodna wuxuu yidhi idinku aqliga ka kora haye aqligiinu ha koro haye qandaraasyadan iyo waxaad ka hadlaysaan iyo mashaariicdan faraha ka qaado markaas gurgurta iyo waxa uu yahay wuxuu xalay ka sheegay magaalada dhuusamareeb in dhaqaalihii beesha caalamka ay ka jaratay wuxuu isla ka sheegay dhuusamareeb in dowladdiisu ay musallaftay halkaa waxaa ka cad wax dhaqaale ah inuusan beel caalamka sugayn wuxuu yidhi shacabka soomaaliyeed iyagaa isku filan waddooyinkay dhisanayaan ayagaa isku filanoo maanta kadib dhaqaale shisheeye uma baxan wanaagsanaa laheeda warma ninka waa ka soo warrami doonaaye qabuurihii muqdisho weli qodaya weliba qabuuraha xilligan aan kula hadlayo cagaftu ay ku jirtay muqdisho aan ognahay soona bandhigi doono ma qofkaasaa maanta bulsho soomaaliya intuu garab ka helo dowladdiisa cid dhaqaale ku bixinaysa ii sheegay gurgurta waa jabay xasan sheekh waa fashilmay maalin kastana waxaan annagu halkan u joognaa inaan tooshka la dul istaagno fashilkiisa dhabar jebintiisa mar kale aan ku celinayaa wuxuu isku darsaday kursi doon ama xildoon iyo xoolo doon qabyaaladna ay u dheertahay wixii soo kordha xaaladaha guud ee siyaasadda dalka daqiiqad walba youtube-kan ayaad kala socon doontaa mar kastana aad kala socotaa haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar haddaadan ku cusbayna hore noola joogtayna mahadsanid intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdullaahi bilwaan oo idinle meel kastoo dunida aad ka joogtaan nabadgelyo